bilaabanaysaa cabsi iyo argagax. Waa sheeko aan cidna fahmi karin. Waa sheeko ka dhacday Bangalore. Waxa ay noo sheegaysaa gabadhaani. Fadlan nagu caawi subscribe. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Magacaygu waa Mary Maar. Waxaana ku dhashtay Bangalore. Da'deeduna waxay jirtaa 31 jir. Waxaan raacay diinta Islaamka. Waxaan qaatay diinta Islaamka. Waxa ayaan bartay aayadaha Qur'aanka iyo xadiisooyinka. Marka aan bartay xadiisooyinka, waxa ayaan ogaaday in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uusan abuurin bilaadan oo kaliya, uu abuuray shaydaan iyo jin. Taasi bedelkeeda markaan akhriyay aayadaha Qur'aanka iyo xadiisooyinka, waxa ayaan ogaaday in ay jiraan wax la yiraahdo jin. Maalin maalmaha ka mid ah Bangalore ayaa waxa igu qabsatay anigoo ku ciyaaraya meel geed hoostiisa ayaa waxa iga hor yimid wax qiic camal u samaysan oo buluug ah, balse waxaan is yiri waa wax oo funny ah, laakiin waxaan ogaaday in uusan waxaan ahayn mid funny ah. Waa hooyaday waxay dhahdaa waxaan maqlaa cod, walaasheedna waxay dhahdaa waxaan maqlaa cod aan ka maqalno geedka oo u eg codkaaga, balse aniga waxaan iri codkayga wuu ku duwan yahay, codkayga aad ayuu u guuxaa. Balse waxaan xaqiiqsaday in maalintii aan arkay qiicii buluuga ahaa uu ahaa mid aan ahayn mid funny ah, balse waxay ila noqotay inuu yahay ruuxaan. Balse intaas aniga kuma aamusin. Mar walba waxaan tegi jiray geedka si aan u ogaado xaqiiqda. Waxaan mararka qaar aan dareemi jiray in ay wax xadeeda kicinaya aan dareemayo, balse intaasi cabsi. Waxaan markaas aan bilaabay in aan ooyo. Waxaan dareemaa cabsi aad iyo aad u badan. Habeenkii ma seexdo. Habeenkii markaan seexdo waxaan dareemaa cabsi iyo argagax sida xadeeda wax la istaajinayo oo kale. Waxaan dareemaa in korkii la fuulo la marjinayo, balse waxaan go'aansaday waxa ku hoos duugan geedkaasi in aan soo ogaado. Anigoo ilinta iska tirtiraya ayaan waxaan aaday geedka si aan u soo ogaado xaqiiqda, balse waxa uu ii noqday mid aan lama ilaawaan ku noqotay nolosheeda. Waxaan raadiyay aan baaray waxa ku hoos duugan geedka. Kadib waxaan ogaaday waxaan inay yihiin jin, balse aniga waxay ii noqotay mid aad iyo aad u farxad ii gelisay. Kadib waxaan ogaaday waxa ku hoos duugan geedkaasi, balse markaan ogaaday waxa ku hoos duugan geedkaasi waxay igu noqotay fajac. Waxaan la kulmay jinkii, waan la sheekaystay. Waxaan u sheegay in aan ka cabsan jiray, balse asigana wuxuu ii sheegay in uusan ahayn mid nafsadeeda khatar gelinaya ee uu ahaa mid aan ahayn ku talgal. Balse dadka sida u moodaan ma ahan jinka. Jinka way kala duwan yihiin. Qaar waxaa ku jira xasidiin, waxaa ku jira qaar aad iyo aad dadka jeclaan kara, balse wuxuu ii sheegay in uu ii jecel yahay, nafsad ahaanteeda uu ii jecel yahay, uuna rabo in aan isguursano. Balse marka aan arrintaasi u sheegay waalidkayga, way la yaabeen. Aad iyo aad ayay ila yaabeen. Waxay noqotay mid aad iyo aad fajac u badan. Waxay dhaheen sidee ku guursan kartaa qof jinni ah? Anigana waxaan dhahay waa qof aad iyo aad u dabeecad fiican. Waan la dhacay sheekadiisa, waan la dhacay hadalladiisa. Waxaan jeclaystay hooyo inaan isguursano jinkaasi, balse way aamin waayeen dadka xaafadda oo dhan markay maqleen arrintaasi. Laakiin aniga waxaan dhihi karaa jinku waa saaxiibka ugu fiican dunida. Dadka qaar miigu raacsana, balse waa kan ugu fiican dunida. In lala saaxiibna ay mudan tahay jinka, balse mararka qaar waxay leedahay khatar aad iyo aad u dhib badan, khatartaasoo aan la yareysan karin. Qof walba wax wuu jeclaan karaa, balse jacaylkaasi waxay isku bedeli kartaa mid farxad leh ama mid murugo leh. Haddaba sheekadeeda intaas ayay ku eg tahay. Haddaad tahay qof xiiseeya barnaamijyadan oo kale, fadlan subscribe noo saar, lana soco barnaamijyadeena xiga. aad iyo aad u mahadsantahay.